maareeyaha wakaaladda filimada ee wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliyeed Cabdisalaan Axmed Caato oo socdaal shaqo ku tagay xadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan goobaha ay ka soo gudbayaan kumaankunka qaxootiga Soomaaliyeed ee soo galaya xerooyinka Dadaab ee dalkan Kenya ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladihii uu dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan uu ku soo arkay iyo waliba qaabka ay dadku u soo gudbayaan isagoo halkaasi Cabdisalaan Axmed Caato kula soo kulmay boqolaal qoysas Soomaaliyeed oo maalin walba soodinta ka soo gudbaya Cabdisalaan Axmed Caato oo telefishinka qaranka la hadlayay markii uu magaalada Nairobi ku soo laabtay ayaa waxa uu ka sheekayay waxyaabihii uu ku soo arkay soodinta horta markii ugu horeysa markaan halkan ka baxnay go'aanku wuxuu ahaa in Dadaab kaliya aan tagin laakiin aan u sii gudubno meelaha dhibaatooyinka taagihiin oo sida Libooyo Kenya iyo waliba Dobley markaan Libooyo Kenya tagnay qaxooti fara badan ayaan ku aragnay oo markaas soo talaabay oo qaarkood ay soo lugayeen qaarkood ay basas ku soo galeen si hoos ah markii aanu joognay Libooyo waxaan isla markiiba waxaan u sii gudbaynaa magaalada Dobley oo dhanka kale ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya Dobley markii aan xarxarka meel yaraad mareynay ayaan waxaan aragnay markaas qaxooti soo lugaynaya oo laamiga inta badan qaxootigu ma maraan waxay maraan duurka islaamiga waxay ka baqayaan in la arko ama wax lagu sameeyo marka shift bay ka baqaan marka qaarkood askarta Kenyaanka ay ka baqaan laakiin qaxootiga uu ka duwanaa markaan weydiinay waxay nagu yiraahdeen sababta ay jidka u soo mareen waxa weeye aad ay u gaajisnaayeen 24 maalmood bay soo socdeen oon iyo gaajo iyo rafaad baa ka muuqday marka waxay yiraahdeen carruurta inay naga dhimato ayaan ka baqnay marka laamigan soo qaadnay si Ilaahay uu noo tuso aan u aragno dad uun jidka ama sii socdo ama soo socdo baabuur wata si ay noo caawiyaan markaan u istaagnay waxaan haynaa xogaa alaaba oo biyo iyo caano iyo maxaan ku yiraahdaa Ilaahay duu ku roon yahay buskud wax saas kala oo dad dibadda jooga lacaga ay noo soo diraan aan ugu soo gadnay alaabtii wixii baan u qaybinay markaan wareysanay waxay noo sheegeen family kamid qoys kamid dadkii lugeynay in laba carruur ay hooyadu ay ka soo tagtay markaa weydiinay waxay tir afar ciyaal lahaa laba kamid jidka ayaa ugu soo tagtay hadda laba wata sababta ay ugu soo tagteen waxay ahaayeen way qaadi weeday wayna hayn weeday markii dambe ay qoysaskan kale ku soo biirtay oo ay arkeen oo jidka iska soo raaceen laakiin laba cunug ayaa halkaas ugu soo dhintay waxaan u sii talawnay magaalada Dobley oo dawladdu ay haysto magaaladu aad ay nabad u tahay dadka magaalada jooga waxay noo sheegeen in ay ku faraxsan yihiin nolosha hadda ay ku nool yihiin in al-shabaab ay dhibaatooyin fara badan u geysan jireen awal laakiin hadda dawladdu ay haysto oo banaanka dadka soo bixi karaan haweenka ganacsadayaasha ayaan wareysanay waxay yiraahdeen hadda waan loo galeena ganacsano noloshu aad bay u fiican tahay laakiin qaxootiga wali wuu ku soo socdaa marka qaxootiga haddaan idin sheego meelaha ay ka kala yimaadeen qaarkood oo waxa weeye magaalooyinka gobolka Bakool iyo Bay waxaa jira xataa dad aan aragnay oo Hiiraan ka soo qaxay waxaan aragnay qoys ka soo qaxay Laas Caanood marka dad fara badan ayaa u maleynay kaliya Bakool iyo Bay kaliya laga soo qaxay laakiin qaxootigu way fara badan yihiin meel kala duwan ay ka soo baxeen magaalooyinka Salagle Saakow maxaan ku dhahaa Bu'aale Afmadow Kismaayo duleedkeeda marka dadku nooc walba ay isugu jiraan laakiin haddii aan laba u kala qaybiyo dadku waxay kala ahaayeen qaxooti soo lugeeyay oo 30 maalmood 40 maalmood soo lugeynay iyo qaxooti basas soo raacay oo lacag yar haystay lacagtana waxay nagu yiraahdeen qaar beerahoodii ay soo iibiyeen oo lacagtii ay baska ku soo raaceen qaar kareetooyinkooda ay soo iibiyeen Maxamed Axmed Ilkaase telefishinka qaranka